warar kala duwan ayaa ka soo baxaya isbedelka ku imaan kara abaalmarinta xidiga sanadka ama abaalmarinta caanka ee loo yaqaano Ballon d'Or sanadihii ugu dambeeyay tan iyo 2008 laba ciyaaryahan kaliya ee abaalmarintan u dhaxaysay waa Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. xidigahaas ayaa isku bedelay abaalmarinta sababtoo ah xil ciyaareed walba labadaas ciyaaryahan waxa ay ku jireen loolan adag min shan jeer ay ku guuleysteen marka la fiiriyo biladahan amaba biladan taasoo ka dhigan in 10kii sano ee ugu dambeysay labadan ciyaaryahan ay kala qaybsadeen kaliya Xavi Iniesta oo 2010kii lagu dhax arkay iyo Frank Ribery oo 3 sano la soo dhaafay mar soo galay mooye inta kale waxa ay u dhaxaysay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo iyo ciyaaryahan kale. Neymar ayaa sidoo kale musharaxiinta saddexda soo gaartay ku soo biiray markii ciyaaryahankan uu heer fiican la gaaray 2014kii xulka qaranka dalka Brazil. haddase ciyaaraha Ruushka ka socda ee koobka adduunka ee 2018 ayay wax walba go'aamin karaan. hadda abaalmarinta waxaa ku tartamaya wajiyo cusub ayaa la hadalhayaa Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Harry Kane yaa u qalma abaalmarintan marka laga soo gudbo wax qabadkii xil ciyaareedkii la soo dhaafay ee kooxaha. Francisco kala hadii aan fiirino waxay haystaan ciyaaryahano muhiim ah. Neymar oo ka ciyaara horyaalka Faransa, Kylian Mbappe oo ka ciyaara horyaalka Faransa, labadan ciyaaryahan waxay ku guuleysteen ama PSG ay la qaadeen horyaalka Ligue 1 2012-2018 balse nasiib daro xidiga la yiraahdo Neymar ayaa 3 bilood ka dhineed horyaalka dhaawacmay. waxaadray uu sameeyay koobka adduunkana ciyaaryahankan lama jeclaysan maxaa yeelay waxa wax badan lagu eedeeyay inuu yahay xidig isturtur badan. Antoine Griezmann ayaa ku jira oo Francisco matalaya kaasoo Atletico Madrid si fiican u soo hana qaaday kuna guuleystay ama ka caawiyay inay ku guuleysato tartanka Europe League. Antoine Griezmann waa ciyaaryahan kale oo muhiim ah oo loo u tartami kara abaalmarintan Ballon d'Or. xulka Croatia kale Madrid waxa ay ku leedahay Luka Modric iyo Mateo Kovacic balse kabtanka xulka qaranka dalka Croatia ayaa diiradda ugu weyn la saari doona maadaama uu yahay ciyaaryahan si fiican kaga dhex muuqday xulkiisa kulamada ay ciyaareen. Belgium kale Guardiola iyo Martinez ayaa looga mahadinayaa xidigaha Belgium ku cadaraha ay sameeyaan. tusaale Kevin De Bruyne bandhigiisa ma xuma ciyaartooyda qaar ee Premier League ka ciyaarta aad ay u soo bandhigeen qaab ciyaareed wanaagsan. Hazard, Romelu Lukaku dhamaantood waxay ka mid yihiin ciyaartooyda xulka Belgium ka guulaha ka caawinaya. marka magaca ugu weyn ee Belgium loo soo qaatay waa Kevin De Bruyne. Ingiriiska kale waxay haystaan ciyaaryahan aan shaki la gelin karin wax qabadkiisa gool dhalineed waana Harry Kane kaas oo 3 kulan koobka adduunka ku dhaliyay 6 gool. waxaa laga yaabaa inuu ku guuleysto gool dhalinta ama ciyaaryahanada kale ay soo qaadaan. sidaa darteeda abaalmarinta Ballon d'Or markii ugu horeysay waxaa laga yaabaa inay isbedesho oo Messi iyo Ronaldo aysan ku guuleysan.